dowladda Turkiga ayaa sheegtay inay gacanta ku dhigtay shabakad sirdoon oo reer Iiraan ah kuwaasi oo doonayay in ay dilaan ganacsade Israa'iili Turkiya kaas oo ku sugan magaalada Istanbul ee caasimadda ganacsiga dalka Turkiga. ciidanka sirdoonka Turkiga MIT-ga loo yaqaano ayaa daha ka qaaday inay heleen shabakadan sirdoon oo dil u maleegaysay ganacsadaha lagu magacaabo Yer Geller oo ah maalqabeen ganacsiyo iyo weliba maalgashiyo badan ku leh dalka Turkiga asal ahaanna ka soo jeeda Israa'iil. MIT ayaa sheegtay inay shabakadan ku raad joogeen muddo bil ah si ay u fashiliyaan, taas oo ka dhigan in kooxdani tahay koox aan sahal lagu ogaan karin oo waday qorshe aad u xeel dheer. waxayna sirdoonka Turkigu xuseen in dhigooda Iiraan ay lahaayeen agaasinka kooxdan, iyagoo dilka ay ku fulin lahaayeen ganacsadahan uga dan lahaa in ay ugu aargudaan saynisyahankii reer Iiraan ee ay Israa'iil dishay sanadkii 2020 kaas oo lagu magacaabi jiray Mahsen Fakhrisadeh. waxayna sirdoonka Istanbul intaasi raaciyeen in kooxdan ay sawir ka qaadi jireen ganacsadahan Yuhuudiga ah, iyagoo sawiri jiray goob walba oo uu booqdo ama si uu ku tago. waxaana kooxdan dhagarta maleegaysay lagu sheegay inay ahaayeen Turki u shaqaynaysay dowladda Iiraan, kuwaasi oo tiradoodu dhan tahay 9 qof oo loo tababaray si heerkeedu sarreyso. sirdoonka Turkiga ayaa hawshan ku wargeliyay hay'adda sirdoonka Israa'iil ee Mossad, iyada oo labada hay'adood ka shireen sidii loo badbaadin lahaa muwaadinkan Yuhuudiga ah ee la beegsanayo. saraakiil ka kala socday labada hay'adood ee Mossad iyo MIT oo shir qarsoodiga ku yeeshay magaalada Ankara ee dalka Turkiga ayaa la sheegay inay isku raaceen in Master Geller la dejiyo guri ku yaala goob ammaan ah, isla markaana ilaalintiisa loo xil saaro saraakiil ka tirsan hay'adda sirdoonka Yuhuudda ee Mossad. go'aankan ayaana la qaatay kadib markii ganacsada Geller diiday soo jeedin ahayd in loo raro Israa'iil maadaama uu tilmaan u noqday kooxaha laga soo abaabulayo Tahraan. kooxda ninkan dilka la maaganayd oo ahaa 9 xubnood ayaa dhammaantood ahaa Turki, marka laga reebo nin 44 jir ah oo u dhashay dalka Iiraan kaas oo madax ka ahaa kooxdan wax shirqoolaysay. kooxdan ahayd koox aad isku qaran jirta ayaa la sheegay in ay wadeen diyaargarowgii ugu dambeeyey ee ay ku qaarajin lahaayeen ninkan Yuhuudiga ah, balse sirdoonka Turkiga oo lagu tilmaamo mid ka mid ah kuwa ugu adag adduunka ayaa xog ka helay qorshahooda, waxaana gacanta lagu dhigay dhammaantood. kani maaha qorshihii ugu horreeyay ee Iiraan isku daydo inay ka fuliso gudaha dalka Turkiga, balse waxa sanado badan soo rarnaa dhagar ay soo maleegeen sirdoonka Iiraan, kuwaasi oo la fashiliyey ka hor intii aan la fulin. sanadkii dhowaan galbaday ee 2021 ayay ahayd markii sirdoonka Turkigu heleen shabakad Iiraan u shaqaysa taas oo isku dayaysay in ay dilaan qaar ka mid ah xubnaha mucaaridka ee dalka Turkiga. sidoo kale bishii February ee sanadkii hore dowladda Turkiga ayaa sheegtay inay gacanta ku soo dhigtay shabakad basaasiina oo qorsheynaysay in ay dilaan saraakiil hore oo reer Iiraan ah kuwaasi oo ku sugan dalka Turkiga. sirdoonka Turkiga ayaa dabagalkiisa lagu tilmaamaa mid mucjiso ah, waxaana agaasimo ka ah nin lagu magacaabo Hakan Fidan oo ay aad isugu dhow yihiin madaxweynaha Turkiga. waxaa lagu tilmaamaa sirdoon aan gudihiisa lagu dhex milmi karin amaba wax lagu dhex beeran karin, waxaana taasi ay sababtay in dalka Turkigu ka hortago weeraro meelo kale laga soo agaasimo oo laga dhex fuliyo gudaha dalka Turkiga.